igu sawir maalmaha dhawaaqay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan wacan meel kasta aad adduunka joogtaan walaalayga sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono arrinta ugu hadalhaynta badan baraha bulshada barnaamijkaas oo ah igu sawir haddana igu sawir waxaad moodaa walaalayaal barnaamijkaas inay dabada ka riixayaan ama ay shidayaan dad markii horeba lagu yaqaanay inay ka soo horjeestaan iftiinka yar ee u baxay ummadda Soomaaliyeed walaalayaal waxaad ogtihiin barnaamijkaas igu sawir waxaa loogu dan leeyahay in lagu dacaayadeeyo waxqabadka madaxda sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelanayaa qof kasta oo wanaagsan oo dadkiisa raba inuu wax u qabto isla markaana amaanadii loo dhiibtay uu muujiyo runtii waxaad moodaa dad badan inay ka xumaadeen oo ay qalad u fahmeen laakiin maanta waxaan rabaa barnaamijkan inaan uga hadlo arrintaas inay diinta islaamka ku bannaan tahay caqliga wanaagsanna ku bannaan tahay haddaan diinta islaamka ku bilowno allah subxaanahu watacaala walaaleel qur-aanka wuxuu noogu sheegayaa inay bannaan tahay in sadaqada la muujiyo oo dadka la tusi karo in wax lala baxay laakiin shardiga uu yahay inay niyadaada wanaagsan tahay isla markaana aad uga dan leedahay in lagugu daydo الله سبحانه وتعالى وحكول لي سورة بقرة آياتها كشيكين صدقة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي إن صدقة موجستان وأعدتك تسيسان إن أدو حلب بحذين وأرن في عنوية ولا على الصحابة وحيسمين جرين أيكو لوجيدو أي أورنجرين وحا صدق استعمال كي كل جيس وحا صدق استعمال كي هاف كيس وحا صدق انت سيان لبحي واحد باتانا ملهين ولا على إنما الأعمال بالنيات وحول بوانية دا وحكو سهرت ولا على مدحضر لمد معها دتك madaxda walaalayaal waa iftiinka dadka waa hormuudka dadka hadii ay dadkooda soo booqdaan ay dhibaato la qaybsadaan oo ay dadkoodii u muujiyaan raxmad iyo naxariis annagii aan goobjoog ahaynna la tuso horta waa arrin aad iyo aad u fiican waxaad si xisaabta ku darsataan madaxda ma ahan kuwa dalbada in ayaga lagu sawiro oo yiraahdo igu sawir laakiin waxa la socota saxaafad waxa la socda dad badan oo moobilo wata dadkaas ayaa ku sawiraya isla markaana saxaafad u soo gudbinaya marka barnaamijka la yiraahdo igu sawir walaalayaal barnaamij ceeba ma ahan waana barnaamij aad u fiican waxaana madaxda Soomaaliya ku dhiirigelinaya in ay badiyaan barnaamijka noocaas oo kala ah si ay dadkooda u tusiyaan inay wax la qabanayaan waxaan halkan baa qooga dirayaa dadka raba mar walba inay dawladda Soomaaliya dacayad u raadiyaan ceebeeyaan isla markaana ummadda Soomaaliyeed isku diraan walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsada walaalayaal xilligii dadka la isku diri jiray waa la dhaafay xilligii waxa la dhaafay dadka la isku keeni lahaa Soomaali walaalayaal maanta way isu baahan tahay Soomaali uma baahna qof dhibaato iyo balaayo iyo propaganda ku fura walaalayaal dhibaato waxaan ugu filan 25 sano 30 sano ilmihii dhashay ilmihii si dhaleen baa maanta guurdoon ah walaalayaal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa loo baahan walaalayaal inaan ma aragtaa caqliga wanaagsan isticmaalno oo dhibaatada iska deyno sidoo kale walaalayaal waxa loo baahan yahay madaxdeena inaan adeecno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay cala almar'i almuslimi qofka muslimka ah waxa waajib ku ah as-sam'u wat-taa'a in uu maqlo uu adeeco madaxweynihiisa inuu adeeco إلا أن يؤمر بمعصية إلا إن لفرو وح موجية فإن أمر بمعصية هدي وحد دنبي لفرو فلا سمع ولا طاعة نبي عليه الصلاة والسلام ولا الحديث كلو عجيبة وإمام أحمد صاري بيهقي وحليه من أكرم سلطان الله قفك كرامي سلطانك الله ومدحنا لجوضا ومدحوين يا شيء لجوضا أكرمه الله الله يكو كراميني ومن أهان سلطان الله قفك الليدا أو يسا مدحوينها إلهي سبحانه وتعالى مدحويني سيسا أهانه الله سبحانه وتعالى وإهانينيا والله يا إلهي باكو إهانينيا هداد مدحنا إهانيسيد إلهي باكو هباريا إلهي باكو نعلضيا هداد مدحنا ولا يا العيسيد أو حوجيستيد هدابا ولا يا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه مدحنا إنه هجاديو سيدوك الله وحن ولا لها وباقي ملك استيجوان إنه وناقة تاجران وهو لكن ناصر عبد العزيز له يقول سورة إن عن شيء وناقة سلمر كان عن وناقة